Haweeney Muslim ah oo hal mar sagaal carruur ah oo mataana ah wada dhashay isla hal waqti, subxaan Allah. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaanu ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kana Abdikariim Cali Aadan mahadsanidin badan. Dunida waa markii ugu horeysay inta taariikhda la og yahay ay haweeney dhasho sagaal carruur ah oo misana mataana ah isla hal waqti. Mararka qaar waa ay dhici jirtay in haweeney ay isku xijaajiso carruur mataana ah ama hal mar ay wada dhasho ugu badnaan ilaa iyo 3 carruur ah, balse haweeneydan ayaa waxa ay dhashay carruur gaaraysa 9 oo misana mataana ah isla hal waqti. Haweeneydan Muslimada ah oo lagu magacaabo Xaliima Ciise oo u dhalatay wadanka Maali isla markaana 26 jir ah ayaa xilli ay iyada iyo saygeedu ay ku sugnaayeen wadanka Morocco ku dhawaad 6 biloodna ay uurka lahayd ayaa waxa ay dareentay culays badan oo haysta iyo xanuun, waxayna iyada iyo xaajigeedu go'aansadeen in la soo baaro loogana warqabo dhallaanka iyo caafimaad qabkiisa. Waxaana markii baaritaano dheeraad ah isbitaalkii ay tageen ee Morocco ku yaalay loo sheegay in hooyadan ay uurka ku sido ilaa iyo 9 dhallaan ah, balse ay mucjiso iyo wax aan horay u dhicin ay ku noqotay maamulkii isbitaalka. Dhaqaatiirtii Xaliima Ciise oo ah haweeneyda uurka 9 carruurta ku siday iyo saygeedaba, waxaana arrinteedii soo shaacbixiyay warbaahinta iyagoo markaasi caawin ka dalbaday dowladooda iyo midda ay martida u yihiin. Dowladda Maali oo ay u dhasheen ayaana kafaalo qaaday wax waliba oo ku baxaya badbaadinta hooyada iyo 9 dhallaanka ah ay uurka ku sido. Waxaana markii ay arrintu soo shaacbaxday ilaa iyo markii ay dhashay aad dhaqdhaqaaqeeda iyo halka ay wax marayaan ula socday isbitaalka ay dowladdu ka bixinaysay qarashka iyo dowladaba. Xaliima Ciise ayaana alle kala keenay oo waxa ay dhashay 9 carruur ah, 5 gabdhood iyo 4 wiil. Aabaha carruurta ayaana aad ugu farxay dhallaankan alle ugu deeqay, Ilaahayna markaasi uu u badbaadiyay xaaskiisa. Xaliima Ciise ayaana waxaa loo rikood gareeyay isla markaana ay noqotay haweeneydii caalamka markaasi ugu mataana dhalka badneed, maadaama ay hal mar wada dhashay 9 carruur ah oo mataana ah, waxaana hadda u bad qaba isla markaana caafimaadkoodu taam yahay ilaa iyo 8 carruur ah halka midkii kale uu ka geeriyooday. Balse arrintan ayaa waxay mucjiso iyo la yaab ku noqotay caalamka iyo bulsho weynta, maadaama ay noqotay Xaliima Ciise haweeneydii ugu horeysay ee ku dhawaad 10 carruur ah hal mar wada dhasha amaba 9 carruur ah dhashay. Adiga hadda muuqaalkan daawanaya maxay ku ahaan lahayd haddii 9 carruur ah hal mar ay ku wada dhashaan?